إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan oo ah deegaanka caalamada ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa goordhow lagu aasay sheekhi weynaa ee Sheekh Maxamed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Ooyaye oo shalay ku xijaabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. aaska sheekha waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweynaha oo isugu jira culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca qeybaheeda kala duwan oo aan u kala harin aaska sheekha. iilka ayaa lagu dhigay sheekha iyadoo ay qaadayaan culimadii tawxiidka Rabbi iyo salliga nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay. waxay noo suurto gashay inaan la hadalno isla markaasina aan ka xog wareysano taariikhdii fog lahayd ee bahajanaye Sheekh Maxamed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Ooyaye saaxiib sujaadaha dariiqada guud ee qaadiriyada Sheekh Axmed Sheekh Aweys Sheekh Muxdiin مع شيخ عبد القادر شقوياي أو ماشي أو كبحي ننكي طريقة شيخين شقوياي إنه هو جامناي وحوها ننكي حاجي ست شقويس أي صوبر بارسي أي إني قعنت قوتي أسيق إيو شيخ جيلاني شيخ جيلاني شيخ حسن شقوياي أو شقويس شيخ محدين شقويس أو طريقة قادرية أو سيي رقي أو صوبر باريي خلفدي أو شقويس محدين أيو كأها طريقة أنتو كسوجري waaba ku dhashayba wax hadda uu soo bilaabay ama waqtiga soo bilaabay la dhahayo ma ahan dariiqadii labada waalid oo dhaleen labada dhinacba Sheekh Aweys bin Maxamed al-Qaadiri ayuu ka dhashay aabihiisa waxa dhalay xaaji Siti Sheekh Aweys ayaa dhashay hooyadiisana ay Deynab Sheekh Aweys ayaa dhashay falilaahi alxamdu adiga 60 sano iyo wax la jira taqriiban ayuu dariiqadan hogaankeeda noo haayay anigu waa iiga horeeyay khaliifnimadii hogaaminta dariiqada ku soo barbaaridda marka aniga dariiqada saas gacanta la iigu saarayna raggi garbahaygi joogay igula talinayay garabkaygi ahaa ma aragtaa wixii qaldanna iga qabanay wixii saxana iyo wadiifadii iyo saadaadka ay ku wadi jireen noo sheegi jiray aan anaga geed harsi noo ahaa waay oo maxaa yeelay jabal oo ahaa asigaasa annaga ku gambanaynay dariiqada iyo howlaheedana inuu waxa ka soo galay ahlu daraa'iq oo dhan ayaa ka soo qayb gashay ahlu sunna wal jamaaca ahlu daraa'iq meel walba ay joogto ay ka soo wada qayb galeen aal axmed noo timid aal rifaaciya timid aal rashidiya timid sayliciya timid uweysiyana midda maanta gogosha iyo tacsiida ay u taala waa waxaan nooga soo tacsiyeeyeen min mashaariq al-arli wa maghaaribiha dal iyo dibid tan iyo xali iyo maanta walaalaha ikhwaanka iyo ahbaabta telefoonada soo diraya sheeqayna nooga tacsiyeynaya noogana duceynaya sabarkana nafarayay wada ahaayeen dhammaan ahlu sunna wal jamaaca ahlu duruq ka culwin waahidin waa waxay ku kala tagsan yihiin ma jirto intaas kadib halkan waxaa lagu oogay xalqad dhikri ah oo weysiya taasoo lagu sugootinayo ee bahajanaye Sheekh Maxamed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Ooyaye gabagabadii waxaan la hadalnay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay aaska iyagoo nala wadaagay tacsida tiiraayada leh oo ay u dirayaan ee bahajanaye Sheekh Maxamed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Ooyaye maantay waxaan tacsida iyo tiiraayada la qaybsanayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed gaar ahaan ahlu sunnati wal jamaaca gaar ahaan duruq suufiya gaar ahaan dariiqada qaadiriyada uweysiyada waxaa maantay naga baxay
ilaahay ha u naxariistee shiikheenni weynaaye jaliilka ahaa sheekh maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye cadde wuxuu ahaa shiikhu sheekh caalim ah mowtulcaalami waaye sheekh caalima diintana in badan u soo kifaaxay ayuu ahaa naxariistii janno allaha ka waraabiyo multasim dariiqada laasimsan ayuu ahaa wuxuu ahaa dayax ka dhex dhashay laba qorraxood ka dhex dhashay ayuu ahaa awowgiis wuxuu ahaa sheekh uways alqaadiri awowgiis kalena wuxuu ahaa sheekh ooyaaye cadde waxaa hooyadii dhalay yacni ayaydiis waxaa ahaa maanasiti sheekh uwaysa ayaydiis ahayd awowgiina waxaa ahaa haddii ilaahay idankeeda aabbihiisna waxaa ahaa cabdulqaadir sheekh ooyaaye ayaa aabbihii ahaa ninka noocaasa ayuu ahaa oo sulaaladaas daahirada ah ee ahluwalaayada ah ka dhashay ayaa maantay naga baxay marka waa isaga tacsiyeynaynaa maanta waxaan iskugu nimiday shiikhayno sheekh maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed ooyaaye duugtiisa iyo tacsiyadiisa iyo janaasadiisa ayaan maanta halkaan iskugu nimiday waxaan ilaahaan ka rajaynaynaa su'aashii in ilaahay u fududeeyo sakaraadku waa gudbay su'aashii in ilaahay u fududeeyo intii sheekha soo raacday janaasada maanta ka soo qayb gashana dembigood Allah dhaafo kulligaana dembigood Allah dhaafo gadaashiisna ilaahayna ma fidnaayo ahladiisna sabar iyo iimaan Allah siiyo dadkii ka soo qayb galay janaasada iyo weliba aaska sheekha ayaa tusinaysaa doorkii weynaa ee wanaagsanaa uu ku lahaa bulshada dhexdeeda ee bahajaneeye sheekh maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed ooyaaye xasan maxamed smatri cooki axbaab meediya deegaanka calamada